wafdi hogaaminaya gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha golayaasha qaranka ee ku sugan magaalada Laascaanood ayaa go'aamo adag oo ku wajahan nabadgelyada ka soo saaray kuwaas oo lagu amray guddiga nabadgelyada gobolka Sool waxaana akhriyay qodobadaasi oo ka kooban 6 qodob oo lagu xoojinayo nabadgelyada xogayaha guddiga golayaasha qaranka Siciid Maxamed Cilmi Siraadle gudoomiyaha wafdiga ahna gudoomiyaha golaha wakiilada wareegtadani waxay ku socotaa si toos ah ugu socotaa guddiga nabadgelyada gobolka waxay kale oo ku socotaa dhammaan dadweynaha gobolka Sool ujeedo hubka gaadiidka iyo shirarka si loo adkeeyo nabadgelyada loona ilaaliyo ku dhaqanka sharciga annagoo tixgelinayna tala soo jeedintii waxgaradka gobolka Sool annagoo fulinayna waajibaadka shaqo ee wafdiga golayaasha qaranka ee gobolka Sool ku sugan waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 23 May 2018 soo saaray amarada soo socda kow waxaa reeban ku siidashada iyo la dhexmarka hubka magaalada gudaheeda laba waxaa reeban in magaalada lagu dhexmaro gaadiid aan lahayn taargada gaadiidka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex waxaa la mamnuucay qabashada shirarka iyo shir saxaafadeedyada aan ogolaansho ka haysan guddida nabadgelyada gobolka Sool afar cid kasta oo ku talaabsata falal kicin ah oo kullid ah nabadgelyada gobolka Sool waxaa loo qaadanayaa dambiile shan ciddii ku xadgudubta amarada ku qoran xubnaha 1 2 3 iyo 4 ee aan soo sheegay ee wareegtadan waxaa laga qaadayaa talaabada sharci ee ku habboon lix dhammaan xubnaha guddida nabadgelyada gobolka Sool xubnaha hay'adaha amniga ee gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaa la farayaa inay toos ugu hawl galaan fulinta amarkan wabillahi tawfiiq sidoo kale waxa war-saxaafadeedkan ka hadlay wasiirka waxbarashada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo guddidaasi ka mid ah golayaasha Soomaaliland golaha wakiilada golaha guurtida iyo golaha wasiirada amarada aad leedin akhriyay ayay soo saareen waxana xasaba oo dadka laga doonayaa inay ku dhaqmaan qodobadaas diyaar loogama aha kicin iyo abaabul iyo buuq iyo hub iyo wax la dhexmaro magaalada sida loo sheegay haddii ilaa imika ay dhacaysay maanta laga bilaabo qof walba ha ku tala galo in aan looga dul qaadan doonin ama aan laga yeeli doonin ama inuu iska hadlo ama inuu arrimo caynkaas oo dadka iyo nabadgelyada wax ku yeelanaya oo ku falal caynkaas oo ku kaco taasaan dadka u sheegaynaa waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay xasiloonidooda inoo ilaaliyaan nabadgelyada inoo ilaaliyaan wixii dalkeena baabi'iyay halka gaarsiiyay inaynu ka waantoono oo aynu ka digtoonaano oo aynu dib uga noqono intaas baan guud ahaan soo jeedinaynaa ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka hadlay in go'aamadaasi ay dhaqan galayaan bulshada ku dhaqan gobolka Soolna ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada gobolku dagaal ku jira emergency ku jira saxaafadda waxaanu ka codsanaynaa waxa weeye caburin mayno laakiin waxyowga ay faafiyeen oo daraad odayaal guryahooda ugu tageen oo tallaa ka soo duubeen loo dulqaadan maayo waxaan loo baahan yahay awaamirtan in la fuliyo waana awaamir inaga faa'iido inoo ah waxaan doonaynaa waxa weeye saxaafadduna inay nala shaqayso oo nagala shaqayso amniga haddii magaaladu kacdo saxaafad ma idin qudhiin noqon maysaan
guryahaad uga soo tuurtaan tollaaye waxa weeye waa dembi waxaanu doonaynaa inaynu gobolkeenna hormarino inaynu nabadgelyadeena ka shaqeyno war-saxaafadeed baa Puntland soo saartay iyagu waxay yiraahdeen ninkii Soomaaliland la shaqeeya waa dil annagu dadka iyaga oran mayno waa dil laakiin waxaanu doonaynaa waxa weeye inaad nagala shaqeysaan nabadgelyada gobolka Puntland deris baynu nahay Ramadaan baa lagu jiraa iyagana waxaan ka waaninaya waxa weeye waa Ramadaan bisha Ramadaan inay dadka dhiigooda ayaan ku soo degdegin awaamirtan ay bixinayaan leeyahay ninkii la shaqeeya waa dil annagu idin dili mayno laakiin waxaan idin weydiisanaynaa inaad la shaqeysaan gobolka amniga ka shaqeysaan waayo saxaafadu dadkana waa kicin kartaa waana dejin kartaa marka saxaafada waxaan ka codsanaynaa waxa weeye doraad way dhacday wixii doraad dhacay dib ugu noqon mayno laakiin maanta wixii laga bilaabo waxa weeye waxaan doonaynaa inaad nala shaqeysaan oo amniga annaga waxaan noo dareynaa amniga gobolka مولد علي ستار TV لا صعنود